بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan marka hore isku soo dhaweynaya xarunta isbahaysiga isbedel doonka kooda luuliyo waxaan rabnaa in aan shacabka Soomaaliyeed maanta la wadaagno shir jarid aan ku qabanayno xarunta dhexe isbahaysiga isbedel doonka kooda luuliyo sidaad ogsoontiin shalayto waxaa kulan ku yeeshay baarlamaanka guddiga joogtada ah kaas ujeedkiisu ahaa in laba ajende ay ka doodaan ajendaha koowaad wuxuu ahaa in la mudeeyo xilliga baarlamaanka Soomaaliya furmi doona kala fadhigiisa todobaad ajendaha kalena wuxuu ahaa in la mudeeyo xilliga guddiga doorashooyinka qaran hor imaan doonaan baarlamaanka taasoo lagu balansan inay dhacdo 27 bisha May dood dheer kadib waxaan fahansanahay in dib loo dhigay kulankii baarlamaanka ay ku hor imaan lahayn guddiga joogtada guddiga doorashooyinka qaran taasoo laga dhigay 26 bisha June waxa kaloo la isku raacay in 6 bisha June laga dhigay xilliga uu furmaayo kala fadhiga baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ogsoonahay in guddiga joogtada baarlamaanka laftirkiisa xubno ku jira ay soo jeediyeen in la isla heysiiyo xilliga uu furmaayo kala fadhiga baarlamaanka oo ku beegan 6 bisha iyo xilliga guddiga doorashooyinka qaran ee hor imaanayaan baarlamaanka laakiin taas ma aysan dhicin oo dood dheer kadib waxa baarlamaanka guddigiisa joogtada ah uu isku raacay in guddiga doorashooyinka qaran ee baarlamaanka hor yimaadaan 27 bisha 6 ee soo socota waxaan ognahay in xubno ka tirsan guddiga joogtada ah ay ku eedeeyeen guddoonka baarlamaanka shalayto in guddoonku ka shaqeynayo muddo kororsi taas oo waxaan u cuntameynin shacabka Soomaaliyeed isbahaysigu waxa uu qabaa dib u dhigistii shalay dib loo dhigay hor imaatinkii guddiga doorashooyinka qaran hor imaan lahaa baarlamaanka Soomaaliyeed inaysan wax sax ah sharci loo adeegsaday inaysan jirin bilcagsi waxaan fahansan in xaliimiyada ee dhowr mar la wadaagtay idaacadaha maxalliga ah in guddigu diyaar u yahay inuu hor yimaado shacabka Soomaaliyeed inuu hor yimaado baarlamaanka Soomaaliyeed lana wadaago guddiga doorashooyinka waxa uu ka damacsan yahay qabsoomida doorasho cod iyo qofa iyo inay soo gudbiyaan jadwalkii doorasho ee loo madalsanaay sanadka 2020-2021 isbahaysigu waxa kale walaac uu ka muujinayaa xilliga lagu soo aadiyay hor imaatinka guddigu hor imaan lahaa baarlamaanka taasoo laga dhigay 27 bisha June taasoo ka dhigan inay tahay wiig lagu jiray wiigga xorriyadda suurtagalna ay tahay inuu mar labaad uu dib u dhaco in guddigu uu hor yimaado baarlamaanka Soomaaliyeed isbahaysigu waxa kale walaac uu ka muujinayaa guddiga isku dhafka ahaa ee labada aqal ee loo dhigay afarta xeer nidaamiye oo iyagana soo gudbintii ay soo gudbin lahaayeen xeer nidaamiyaashii iyagana muddo isbuuca dib loo dhigay waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed u iftiimino sida baarlamaanka Soomaaliyeed uu shaqeeyo iyo waqtiga baarlamaanka u harsan iyo shuruucda hortaala inaysan hadda aysan ahayn laba wax oo had isqaadan karta baarlamaanka waxa hor yaala afar xeer nidaamiye iyo xeerka xisbiyada oo isagana wali baarlamaanka hor yaala xeerka koowaad waa maqaamka gobolka Banaadir iyo sidoo uga qayb qaadan lahay doorashada maqaamka gobolka Banaadir waxaan ognahay inay tahay arrin xasaasiyad leh 20 sano soo jiitamaysay haddana aysan suurtagelin in muddo kooban gudihiis uu baarlamaanku uu xal uga gaaro shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waan ku celcelin waxay xaq u leeyihiin inay soo doortaan dad ku yimid codkooda dad ku yimid kalsoonidooda dad iyaga u qidmeynaya xeerka labaad ee baarlamaanka iyagana hor yaala waxaa kamid ah qoondada haweenka waxaa kaloo kamid ah in gobolada waqooyi xildhibaanada ka soo xildhibaanada gobolada waqooyi ka yimaad sidii wax laga yeeli doono xeerka afaraadna waa in kuraasti baarlamaanka ee gobolada iyagana la qaybiyo si deegaan walba u yeesho kursi doorasho afarta xeer nidaami markaad fiiriso waa afar xeer nidaami aad u culus waxaana ku soo baxaysa in waqtiga harsan iyo ka xalgaaridooda inay tahay mid aad u culus waxaan rabnaa in baarlamaanka Soomaaliyeed in xasuusino in muddo xiliyeedkiisa uu gabagaba maraayo baarlamaanka waqtigiisa wuxuu ka dhamaanayaa bisha October ee sanadkan ku jirno waxa uu harsan waa dhowr bilood waxaan rabnaa baarlamaanka inuu ka shaqeeyo inuu soo dhiso guddi isku dhafa guddigaas oo ay ku midaysan yihiin dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee qayb ay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed ee qayb ay ka yihiin ganacsatada culamo oo diinka maamul goboleedyada guddigaasna shaqadiisu inuu noqdo inuu soo diyaariyo xeer doorasho oo looga gudbi karo xaaladda cakiran ee hadda waddanku ku sugan yahay isbahaysigu waxa uu baarlamaanka sidoo kale u xasuusinayaa in shacabka ay soo doorteen sidaas daraaddeed baarlamaanku sharci uma haysto inuu isaga waqtiga isugu daro baarlamaanku sharci uma haysto inuu isaga u yiraahdo waqtigan kororsanayna muddo xiliyeedka baarlamaanka markii uu dhamaado baarlamaanka Soomaaliya waxa hortaala hal mid oo ah inuu shacabka dib ugu laabto dibna u weydiisto kalsooni haddii shacabka kalsoonidaas ay siiyaana
in uu dib shacabkiisa ugu shaqeeyo haddiise kalsoonida shacabku ay siin waayaan baarlamaanku waa in uu baneeyaa kuraasta laakiin waxaa anaga mar walba kasoo horjeednaa kuna celcelinaynaa in baarlamaanku hadda uu la yimaado fikir ah inay ka shaqayn karaan muddo kororsi isbahaysiga waxaa kaloo aad uga xun yahay dhacdadii shalay ka dhacda Qansax Dheere taasoo diyaarad ay leedahay shirkadda Salaam Air hawada lagu duqeeyay dhowr xabadood lagu dhuftay sida la sheegayna ay arintaas ka dambeeyeen ciidamo aan heebtooda la aqoonin oo ajaaniba waa markii labaad arintan ay dhacayso shalay waxay ka dhacday Bardaale oo diyaarad Soomaali leedahay oo saarin 6 qof hawada lagu duqeeyay kadib 6 qof ay halkaas ay ku dhinteen isbahaysiga isbeddeldoonka kooda luulay warbu ka soo saaray ay ku midaysan yihiin isbahaysiga Higsi iyo madasha xisbiyada qaran arintaas dawladdu kamaysan hadal kama aysan jawaabin waa markii labaad arintan ay dhacayso waxaan rabnaa inaan xasuusino dawladda Soomaaliya markii laga hadlayo wadanku wuxuu ka kooban yahay hawo wuxuu ka kooban yahay cir wuxuu ka kooban yahay dhul wuxuu ka kooban yahay bad dawladdan waajib ka saaran yahay inay ilaaliso midnimada iyo madax banaanida wadanka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed uma dul qaadan karo mana sii fiirsan karo in maalin walba diyaaradaheena hawadeena ay ku mari waayeen si xorriyada si aysan munaasib ahayn maalin walba loo beegsanayo loona duqeynayo dawladdu waxaa rabnaa inay shacabku uga jawaabto ciidamadan diyaaradaha duqeynaya iyo sharciyad ka haystaan shalay waxaan ognahay AMISOM inay dhahdo anaga ciidamada diyaaradda Bardaale soo riday ma ahayn ciidamo ka tirsan AMISOM dawladda waxaa laga rabaa inay anagana la wadaagto noona sheegto ciidamadan iyo u shaqeeyaan xagee ka yimaadeen yaa sharciyad siiyay waxaas idil oo su'aala dawladdan ka rabnaa shalay arintii Bardaale dawladdu way ka aamustay tii Qansax Dheer waxaan rabnaa in laga aamusin oo baarlamaanka iyo shacabka iyo dawladooda midaysan in ay ka wada hadlaan si aysan mar labaad arintan u soo noqon waa arin uguba in diyaaradaheena hawadeena ay ku mari waayaan si nabada ayadoon ogsoonayna Soomaaliya ay wadan xora wadan madax bannaan wadan shacab leh wadan baarlamaan leh wadan dawlad leh dawladdan waxaan ka rabnaa arintaas inay adkayso ugu dambeyn waxaan rabnaa dawladda in shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaankooda u soo bandhigto waxa kaliya in 3 goor dawladda Kenya loo ogolaado in dhageysiga dacwadda ee dib loogu dhigay loo aqbalo codsigooda dawladda Soomaaliya waxaa rabnaa inay noo sheegto ma culays baa jira iyaga xaggooda ah ma waxaa jinaysan haysan qareenadii awoodda u lahaa in arinta ka falgalaan ma waxaysan haysanin dhaqaalihii u baahnaayeen inay ku qabsadaan qareeno culaysyada jira dawladdu waxaa rabnaa inay shacabka u soo bandhigto ugu dambeyn waxaa rabaa shacabka Soomaaliyeed dawladooda asxaabta siyaasadeed inay ka shaqeeyaan in xaaladan kala guurka looga baxo si qurux badan si loo helo dawlad ku timid shacabka kalsoonidooda dawlad ku timid rabitaanka shacabkooda dawlad 2021 ka soo bixi karta howlaha xakiran aadka u culus ee shacabkan iyo dawladdan inta hor yaala aad baa u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.